asalaamu calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan muuqaalka maanta wuxuu ka mid yahay taxane kooban oo ka hadlaya sida loo horumariyo nafta kaasoo ku siinaya talooyin iyo xog kaa caawinaysa inaad noloshaada kor u qaaddo waxa uuna ka koobnaan doonaa taxanahani 4 qaybood. qaybta koowaad waxa ay ka hadlaysaa sida loo horumariyo maan ama maskax awood leh. mar kasta oo ay maskaxdaada iyo habfikirkaagu isbedelaan, wax kasta oo bannaanka ka ah iyana way isla bedelaan. maskaxda awoodda leh ee faraxsani waa asaaska nolosha guusha leh. marar badan nolosheenna maskaxda iyo qaabka aan u fikirno ayaa jaangoysay inaan guulaysanno ama aan guul darraysanno. si kastaba ha ahaatee, maskax awood leh, kalsooni ka buuxdo, rajo ay guul ku raadinaysana leh ma ahan kuwo la dhaxlo uun, ee qof kasta oo naga mid ah waxa uu u shaqayn karaa suu u noqon lahaa mid discibliin leh, joogtayn leh, positive ah, waqti kasta iyo goob kasta. sabankan aynu joognana waxaa jira boqolaal buug, muuqaallo, casharro iyo koorsooyin kuwaas oo horumarinaya habfikirka togan ee awoodda maanka. marka marmarsiiyo ma jiro maanta aadan ku dhisin awoodda maskaxdaada. haddaba aynu u guda galno 5 qodob oo ka mid ah qaababka loo xoojiyo maanka ama maskaxda bini'aadanka. qodobka koowaad, visualization. daraasado cilmiyeed ayaa xaqiijiyey in maskaxda bini'aadanku ay kala saari karin badi farqiga u dhaxeeya xaqiiqda dhabta ah iyo sawirashada. inaad howlaha muuqaalkooda maskaxdaada ka daalacato, inaad sawirato naftaada oo ku nool nolosha aad rajaynayso ama ku riyooto, keliya kaama caawinayso inaad gaarto himiladaas, laakiin waxa kaloo ay maalinkaagaas u bedeli jawi positive ah. marka cibaadada iyo ducada iyo filidda khayrka waxa ay kaa caawin in maalinkaagu firfircooni badan yeesho, si wacan ku bilowda, farxaduna ku badato maalinkaas. mid kale oo ka dhigta sawirashada mid manfacla waxa weeye in aad isticmaashid vision board, taas oo ah tiro sawirro iyo notes xamaasad ku gelinaya inaad isku keento oo aad meel ku dhegsato. kuwaas waxay noqon karaan ashyaa aad rabto inaad lahaato mustaqbalka, khibrad aad rabto inaad yeelato, ama meel aad rabto inaad ka shaqayso. waxa uu noqon karaa sawirro aad internetka meel ka mid aad ku ururisay, ama warqado aad soo printer garaysay oo notes iyo ay ku qoran yihiin, kuwaas oo kugu dhiirigelin karaya inaad ku dhaqaaqdid howlahaaga. qodobka labaad, affirmation. affirmation waa erayo positive ah oo present tense ah, xilliga la joogo hadlaya, xilliga markaas la joogo ka hadlaya, kuwaas oo awood siinaya isla markaasna na dhiirigelinaya. inkastoo dadku aaminsaneen saamaynta affirmationka, misna isticmaalka erayo togan waa mid ka mid ah dabeecadaha qofku uu farxad ku heli karo, maskaxdiisana energy badan ugu soo jiidi karo. waxaad samaysaa ururi dhowr halqabsi ama oraahood oo ku dhiirigeliya, kadibna iyaga ku celceli. markaas farxad iyo energy kaliya ka heli mayside, waxa kale oo uu hoos u dhigin stresska, kor waxa uu u qaadaa kalsoonida iyo wax soo saarka qofku uu yeesho. qaar ka mid ah erayada ama orahyada aad oran kartid waxa weeye: waan awood badanahay, ilaahay baa ii nimceeyey, farxad baan ku noolahay, hadda waan faraxsanahay, xaaladuhu ima xukumaan, jirkayga maalin kasta caafimaad iyo awood baa usii kordhaysa. qodobka saddexaad, gratitude. mahadnaqa ama mahadcelintu inaad ku xamdi noqdid waa mid ka mid ah waxyaabaha farxadda bila ee aan haysano insaan ahaan. saasoo ay tahay kuma camal falno oo inta badan waa aynu caabanaynaa ilaa aan ilowno nimcooyinka aan haysano. waana tii ilaahay quraankiisa ku yiri: la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabi lashadiid. marka mahadnaqa u weyn oo u badan si Allah subhanahu wa ta'ala oo ku xamdina nimcooyinka aan tirada lahayn ee ku siiyey. xaqiiqdu waxa ay tahay xitaa waqtiyadeena u xun waxaa jira waxyaabo badan oo ay mudan tahay inaanu ku xamdinaqno. waxaad haysataa hooy, cunto, biyo, hawo, caafimaad iyo kuwo kale oo badan. marka xusuusnaanta in aadan u qaadan kuwaas inay abidkood kula joogayaan waa waxa keeni kara in naloo badsho nimcooyinkaas, iyagana aanu markaa fahanno qiimahooda. sidoo kale la macaamilka dadka maalinlaha ah, iyaguna waxa aad samayn kartaa inaad mahadceliso, shukran iyo thank you aad tirahdid, taasoo iyagana dhiirigelinaysa adigana maskaxdaada iyo jirkaaga firfircooni siinaysa. qodobka afraad, enjoy your time alone. waa adiga qofka noloshaada u muhiimsan, sidaa darteed inaad naftaada waqti la qaadato micno weyn bay samayn. waqtigaaga gaarka ah ku raaxayso. dadka qaarkood baahibay ka doorbidaan
inay meheradaha keligood wax ku cunaan. inaad keligaa tahay waxa ay ka dhigan tahay inaad keli la ahaato fikradahaaga, cabsiyahaaga iyo wixii kaa khaldamay, isla markaasna lagaa qasin. dadkuna taasay ka cabsadaan inay la keliyoobaan maankooda iyo waxa ka guuxaya, لأنه way sahlan tahay inaad caburisid fikradahaaga iyo wax maskaxdaada ku jira markaad dad kale la joogtid ama ay dadku ugu hareeraysan yihiin. dadka maankooda awoodda leeyahay keliya ma aqbalaan ee waa ay ku raaxaystaan inay naftooda waqti la qaataan, si cad bayna u raadshaan waqti ay naftooda la qaataan, say focus u saaraan waxyaaba markaas hor yaalla iyagoo u ogolaaneen inay cidna ka qashqashaado waqtigaasi. inaad fikradahaaga la keliyeysato waa tallaabo fiican ood adigu isdhegaysatid waxa maskaxdaada ku jira. markay keli ahaato naftu waxay la kulmin oo si weji ka weji ah u hor istaagin hamigaaga iyo himilooyinkaaga fog. marka dadka naftooda marmar keli la noqdaa kama baqaan cabsiyadooda iyo fashilkooda, laakiin cashar ayay ka bartaan. marka adiga hadda kadib haddii aad keligaa tahay ha ku boodin mobilka iyo internetka dhegayso, gees fariiso, naftaada fikradeeda la keliyeyso, xoogaa soco ama orod adoo markaas is dhegaysanaya. qodobka 5, take responsibility. dadka badidiis ma fahansan xornimadu waxa ay ka timaadaa inaad tahay mas-uul, qof loo raacan karo oo mas-uulka ah ficilada iyo actionska uu sameeyey. markaad xilkaas qaado ayaadna helin nolol aad jeceshahay. mas-uuliyadda waxaa la yimaada awood ah inuu qof go'aan qaadasho leeyahay, taas oo ah wax aad haddaba baran karto oo aad practice garan karto inaad go'aanka si degdeg u qaadatid. markasta oo aad samaynayso go'aan yar, khaasatan naftaada qasab oo dhaqso u samee. cunno haddaad dalbanayso meherada menuga ha ku mashquulin waqti badan ee 2 daqiiqaba ku gaar oo go'aanso waxa aad cunayso. haddaad kaba iibsanayso sidoo kale fududee. haddii aad ka labalabaynayso inaad baxdo iyo inaad joogto guriga, go'aan dhaqso qaado. go'aankaasna si uu u hirgalo xiro dharkii aad guriga ku joogtay oo kale. taasi waxa ay maskaxda ku tababarin inaadan ku daalin waxyaabo yaryar, waxayn u sahlin in maskaxdu ay la qabsato hadhow in go'aanada waaweyn oo aad gaadhid go'aan mirdhal leh. adiga maxay kula tahay kobcinta awoodda maskaxda maxaa kaloo caawin kara? mase isticmaashaa qodobada aan soo xusnay mid ka mid ah? qaybta commentiska nagula wadaag, share, like, subscribe, lana sii wadaag asxaabtaada muuqaalkan. sidoo kale la soco qaybaha kale ee taxanaha horumarinta nafta. السلام عليكم.